wardegdega maxaa qasaaraha ayaa ka dhashay weerar ay Jubbaland doonaysay inay ku qaadaan Raaskambooni balse looga hortagay duleedka deegaankaasi wararkii ugu dambeeyay dagaal xooggan oo halkaas ka dhacay imise ayaa looga dilay dhinaca Jubbaland maxaase qasaare ilaa imika dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya laga diiwaan galiyay muuqaalkeena ayaynu ku eegi doonaa haddii aad nagu cusubtiin fadlan ku soo biir page-keena oo ka mid noqo saaxiibadayna ugu xiran si aad halkan uga heshaan warar warbixino muuqaalo aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino hagaag wararka naga soo gaaraya deegaanka la yiraahdo Marnaani una dhaxeeya deegaanada Buurgaabo iyo Raaskambooni oo duleedka Raaskambooni oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya halkaas ay ku leeyihiin fariisimo xooggan ka gadaal markii dhawaanahan ay dawladda halkaas ku daadgureysay ciidamo fara badan ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dagaal uu halkaas ka dhacay dagaalkan ayaa la sheegay in sababtiisa ay ahayd ka gadaal markii ciidamo ka soo baxay dhinaca Jubbaland oo ka amar qaatay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla markaana watay gaadiidka nooca dagaalka ay doonayeen inay weerar ku qaadaan deegaanka Raaskambooni hase ahaatee saraakiisha dhinaca dawladda ee ku sugan deegaankaas ayaa xaqiijiyeen xogta ciidankan weerarka ku soo ahaa ay ka war heleen isla markaana ay uga hortageen duleedka deegaanka Raaskambooni meel la yiraahdo Marnaani waxa la sheegay in xubnihii weerarka soo qaaday qaarkood lagu dilay halkaas halka kuwa kalena iyaga oo dhaawacyo qaba la qabtay kuwa kale oo doonayay iyaga oo bad qaba balse doonayeen halka ka baxsadaanna ay gacanta ku dhigeen dhammaan waxa ay doonayaan sida saraakiishu ay shaaciyeen inay soo bandhigaan waxaana halkaasi lagu gubay laba gaari oo nooca Zuuga loo yaqaano oo ay wateen ciidamada maamulka Jubbaland ee ka amar qaatay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe saraakiisha dhinaca dawladda waxa ay sheegeen in 10 mayloobaan ay u dhigeen xubnihii ay ku tilmaameen inay ahaayeen maleeshiyad isku soo dayay in ay carqaladeeyaan ciidamada dawladda ee ku sugan deegaanka Raaskambooni iyo amniga guud ee deegaankaasi dhawaanahan waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda cabsi xooggan ayaase laga qabay in halkaasi dagaal uu ka qarxo waxaase loo badinayaa in dagaalka ka dhacay duleedka deegaanka Raaskambooni uu noqon doono silsilad sida wararku ay sheegayaan waxaana jirta in 4 jiha ee magaaladaasi ay ka wadaan dhinaca maamulka Jubbaland isu diyaarin weerar ka dhan ah ciidamada dawladda ee ku sugan deegaanka Raaskambooni ilaa imidkan lama sheegin qasaaraha dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya ka soo gaaray dagaalkaasi wixii warar ay ku soo kordho wararkeeni warbixinadeena dambe ayaad ku daawan doontaa